ومادحين كسو قيب غلاي مناسبة لغو سيارنيو أو حاجي با حسن مرحوم كان مانت سيارتا أن كقيب غلني أن إذا كغسا وربحين دونو وقيبها كلا دوان علماء الصوماليات او كسو قيب غلاي مناسبة سيارسرا لو سو اغاسيم او لغو سيارنيو ربي نحريسي جنها كورابيه او حاجي با حسن او ان وربحنتنا aan idinkaga diyaarinay halkan waa deegaanka Jazeera ee koonfur galbeed Soomaaliya oo 18 kiiloomitir kaga beedan dhanka koonfur ee magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaan halkaas u tagnay in aanu idinkaga soo warbixino munasabad siyaarsara loo soo agaasimo oo lagu siyaarinayo Sheekh aw Xaaji Ba Xasan oo kamid ah علماء الصوماليات oo sida weyn loogu yaqiinay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo wadamada caalamul islaamiga sheekha ayaa waxa uu ku duugan yahay deegaankan Jazeera ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan halkaas oo indhihiinu qabanayaan oo badda laga soo bilaabo koodii bishii Shacbaan ilaa iyo imikan oo la taagan yahay 12 bisha Shacbaan waxa magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka gaar ahaan awlaadii ay ka soo alkumeen Sheekh Xaaji Aw Ba Xasan meelaha ay ku kala sugan yihiin lagu akhrinayay Quraanka Kariimka iyadoona meel walba loogu niyeysanayay Aw Xaaji Ba Xasan dariiqada kala duwan ee ku nool magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa u soo kala yaamay halkan oo ka dhacaysa banaanbaxa shiiqa iyadoona halkan ay ku qabanayaan salawaad iyo waliba nabi amaan شيخ عبد القادر شيخ يوسف iyo Sheikh Ahmed Maxamed Abdi Ahmed Jazeera iyo culimo kale oo isugu jirta dhalinyarada deegaanka iyo dadka waaya araga ah ayaa ka hadlay kuna dheeraaday taariikhda Aw Xaaji Ba Xasan waxaana hadaladoodii kamid ahaa asalka Sheikh Al-Jazeera asalkoodu dambe waa Arab waxayna ka soo jeedaan saxaabiga jiliilka ahaa ee Zubayr bin Awaam raka Allah garal noqday Sheikh Xasan rahmatullahi wa salaam alayhi Allah rahmatullahi wa wadaadka ay ka soo iskumeen beesha Sheikh Al-Jazeera oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed magaca Sheikh Ba Xasan magaciisa saxda ah waa Sheikh Maxamed wuxuuna ka yimid magaca Ba Xasan oo caan ku yahay Sheikh Abu Xasan oo ah kunyada wiilka curadkiisa ah Sheikh Maxamed waxa uu ku soo koray agoonnimo sababtoo ah waxa uu dhintay aabihiisa isagoo daayar waxaana soo korisay hooyadiisa magaca hooyadiisa Habiba bint Hussein Ad-Dakiya sheekha waxa uu xifdiyay Quraanka isagoo daayar kadibna waxa uu bilaabay barashada diinta waxaana la sheegayaa inuu Ilaahay siiyay fahamka iyo fadhiga islaamka safarkiisa fidinta diinta sanadkii 629 hijriga waxa uu sheekhu go'aan ku gaaray inuu u safro geeska Afrika sababtoo ah xilligaasi waxa ahayd xilli ay baahi weyn loogu qabay fidinta diinta islaamka ujeedadiisu ma ahayn dhaqaale raadis iyo adduun raadis iyo tacabasho ee waxay ahayd faafin diinta islaamka oo loogu faafiyo bariga Afrika iyo baahi diimeed oo ka jirtay xilligaas xaruntiisa dalka Soomaaliya sheekha waxa uu saldhigtay degmada Hamarweyne wuxuuna faafinta dacwada islaamka ka bilaabay halkaasi isagoo duruusyo diini ah ka jeedin jiray masaajidka masaajida kala ah 4 rukun iyo cadayga khidmada sheekha waxay bilaabatay bisha koodeeda waxayna ku ogtaa 12keeda 13keena waxa waaye banaanbaxa insha Allah waa maalin aad u khayr badan waay sida had walaalkeen inoo sheegay taariikhdu waa sida saxda ah annagana ma aragtay waxaan maanta reereen iyo soo dhaweynayna dadka ka soo qayb galay ahlu taariikhda dhamaan oo soo dhaweynayna insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim زيارتي حاج با حسن ayaan taaganahay maanta 13 laakiin waxa jirto bisha koodeeda ayaa ziyaartii noo bilaawatay ilaa iyo bisha 12keeda khidmadiisa la akhrinay quraanka akhrisku ahaa maanta waxaan taaganahay banaanbixiisa caawadan waxa way dhafartii برنا إن شاء الله تعالى مرتدي أنتي نوصل قبل إن إلهي سنة جوك سيارة جوك ترتيب إن إلهي قريود كوجي أنا جانا وحنا شيء إن زيارتي لقلي لقشي أو
hirgashay oo la soo bilaabo bisha kowdeed ilaa iyo 13 maanta ay socoto caawa ay ku agtay 14 insha Allah taala intii ka soo qayb gashan ajir xasanadan dhaha kulligeena muraadkan Allah noo sakhiro amuurahayna Allah noo sakhiro insha Allah taala hadana waxaan u sii dhigaa shaacirka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan u maleynaa maanta ziyaaradii Sheekh Xaaji Baa Xasan inay maanta tahay banaan bixi waaye insha Allah caawa lafarkii waaye berina khatankii waaye waxaan soo bilaabay bisha kowdeed ilaa iyo 12 maanta ma socotaa waqti kamaan maalintii quraan akhriska wuxuu bilaabay bisha Shacbaan kowgeeda oo Jimco ah talaadada ayaa la soo khatimay maanta arbacadana banaan bixi waaye عاون الأفريقي ويسول والد كسوق بسني أجر حسنات الله يا إلى يا بريتو خاتمكي وعاون الأفريقي يا الذي ويسعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مدة الصوماليات كسوق بقلياشة زيارة حاج با حسن ونوبل عوتي بيش معان كودي ذا إلا يومان تصدح يتمنى أي نص عطه وزيارتنا سي شرف وناجي كرام لها أي نص عطه وعاون أي تهاي أفر يتمنى شبعان نفر كوي هاي هلك هذا تاجنا هو بنامبحي هلك العادي بنامبحي ومدي لهم وجهته حتى بعد صلاة المغرب وكلنا صلاة المغرب كدب عشاء لدكنا عشاء كدب وحال جوز ونقولنا هلكان زيارة سي سعنسة إن شاء الله تعالى دلالكنا وسي سعودات. أنا ku hadlayo magaca beelweynta Sheekh Jaziiro gaar ahaan deegaanka Jaziira reer Xaaji Baa Xasan maanta ay bishu taariikhdu ay tahay Shacbaan 13 hijriyada caawa oo ziyaaradii Sheekh Xaaji Baa Xasan awlaadiisa macrifadiisa dadkii asiga aan asal ahaan xiriir la lahaa ilaa iyo 10 qarni iyo wixii ka horeeyay meeshan waxaa isugu yimid sheekha familkiisa iyo ahbaabtiisa oo ka soo qayb galay ziyaaradan qiimaha iyo qaayaha weyn nagu leh anaga taariikh aan la soo koobi karin nagu ah oo intii faracan uu alla dunida uu keenay ilaa iyo caawadan Shacbaan 14 ay noo dhalanayso maanta oo 13 oo ahayd banaan bixi ziyaarada Sheekh Xaaji Baa Xasan walaalaha dhamaan Sheekh Jaziira oo dunida daafeeda gobolada dalka meel walba caalamka kala joogan maanta waxay noo tahay maalin ugu qaali ah maanta waxaan soo aadnay deegaanka weyn ee Jaziira waxaan ziyaaranaynaa abkeena oo Baa Xasan 13 maalinkaas la soo aadaa habeenkiina dhafarta waa Shacbaan soo galaysa 14 qabriga la koraa meeshaas lagu subxaana lagu digrinaa subaxeen sidaas lagu kala baxaa marka maanta maalin weyn ay noo tahay Shacbaan 1 ilaa iyo xalahay 13 kow ilaa 12 iyo labadaas maalmood qidmaa la wareejina oo waalidiinta lagu duceynayo maalinkan oo 13 waxaa la soo aadaa Jaziira habeenkiina sidaas ziyaartu lagu ziyaaranaa marka insha Allah farxad waaye meel walba joogtiin farxadaas iyo bishaaradaas la qaybsada. dhanka kale waxaa bilowday subicii iyo quraan akhriskii lagu niyeysanayay sheekha in jannadii firdawsi Allah ku abaalmariyo waxaana qaybaha kala duwan ee jamalka korkiisa gaar ahaan qabriga lagu dul akhrinayay quraan iyo waliba salawaad. abshir macalin juusta abshir miinimo deegaanka Jaziira gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.